Assalaamu calaykum. Dal aan la aqoonsanayn laakiin si ka dhaqaale badan in ka badan 170 dal oo caalamka. Haddaba si aad u ogaatid warbixinta dalkan, dhammayso muuqaalka. Dalka Taiwan. Taiwan waa maamul ka kooban jasiirado oo dhaca koonfur bari waddanka Shiinaha ama waqooyiga Filibiin. Taiwan waxay ka mid tahay dalalka aan la aqoonsanayn, balse waa dal ama maamul leh awood dhaqaale, taasoo u sahashay wax walba ay u baahan yihiin, kana dhigtay dal aad u dhaqaale badan, lehna ciidan xooggan, furo u gaar ah, baasaboor u gaar ah, iyo sidoo kale ganacsi ku baahay guud ahaan caalamka. Marka la eego dhammaan dalalka adduunka, kuwa la aqoonsan yahay iyo kuwa la aqoonsanaynba, Taiwan waa dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Waxay ka dhaqaale badan tahay dal walba oo dhaca qaaraddan Afrika. Sidoo kale, waxay ka dhaqaale badan tahay isku darka dhaqaalaha wadamada Egypt iyo Pakistan, ama isku darka dhaqaalaha wadamada Nigeria iyo sidoo kale Algeria oo ka wada tirsan qaaraddan Afrika. Taiwan waa maamul aad u horumaray dhanka tiknoolajiyadda, ganacsiga iyo sidoo kale sayniskaba. wuxuuna ka mid yahay maamulada ama dalalka ugu waxbarashada fiican adduunka uguna amnisan. Tirada dadka waddankan ku nool waa ku dhawaad 24 milyan oo qof. Baaxadda waddankuna waa 36,000 oo kiiloomitir. waana kala bar baaxadda gobolka bari ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale, waa in ka yar baaxadda waddanka Holland oo isagoo ka sii yar gobolka Gada ee Soomaaliya. Dhaqaalaha waddanka ama wax soo saarkiisa waa ku dhawaad 560 bilyan oo dollar. dakhli sanadeed ka soo gala qofka Taiwanese ah waa 49,000 oo dollar. waana mid ka mid ah wadamada ugu qanisan dunida. dadka waddankan dega 95% waa Han people, waana isla qoomiyadda degta dalka Shiinaha oo ah tan ugu ballaaran dalka ama markaas dunida dhan. nidaamka waddanku waa dimuqraadi. awood ugu sareysana waxaa leh gabadha lagu magacaabo Tsai Ing-wen oo ah madaxweynaha dalka. caasimadda waddanku waa Taipei. sidoo kale, magaalada ugu weyn dalka waa magaalada New Taipei. heerka horumarka aadanaha ee Taiwan ama markaas dalkan Taiwan wuxuu ku jiraa booska 27 guud ahaan dunida. baasaboorka waddankan waa mid lagu tagi karo bilaa fiiso in ka badan 140 dal oo caalamkan ah. sidoo kale, furaha dalku waa balaas 886. lacagta waddankuna waa New Taiwan dollar. dalkani ma ahan dal aqoonsan yahay, hal waddan markaas ma aqoonsano, balse heerkaas oo dhan wuxuu ku gaaray dadaalkiisa iyo shacabka oo hormariyay dalka. shuruud walba oo looga baahnaa dal raba aqoonsi way buuxisay Taiwan, balse dalka uu ka go'ayo waa Shiinaha oo ah quwad aad u ballaaran. mana jiro dal raba inuu Shiinaha isku diro xilligan. xitaa Mareykanka ayaan ku dhiiri karin madax bannaanida Taiwan. dalkan Taiwan ma lahan macdano ama shidaal oo soo saaro, balse kaliya waa mid aad u shido badan. aan u soo laabano geeska Afrika. Somaliland waa maamul sheegtay inuu ka go'ay Soomaaliya ku dhawaad 30 sano ka hor, balse weli maysan gaarin heer isku filaansho ama horumar la taaban karo. ogowna Somaliland istiraatiijiyad ahaan 100 jeer in ka badan way ka muhiimsan tahay marka loo eego dalkani Taiwan. haddii aad danayso muuqaalada noocan oo kala ah, fadlan ku soo biir kanaalkan cilmi baaris oo taabo calaamadda subscribe-ta si aad ula socotid muuqaalada kale ee aan soo geli doono. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.